madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo wehelinayo agaasimaha guud ee wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismo cusub oo loo hirgelinayo wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland. munaasabadda lagu dhagax dhigay dhismaha loo hirgelinayo wasaaradda khayraadka biyaha ayaa waxa gooreen halkaasi ka hadlay mulkiilaha shirkadda Albaraka Injineer Cali Cumar oo ah shirkadda dhisaysa dhismaha loo hirgelinayo wasaaraddaasi oo ka warramay adeegyada kala duwan ay qabato shirkadda Albaraka Construction Company. waxaana uu shirkaddu waxay jirtay 10 sanadood dalka gudihiisa iyo dibadiisa waxbay dalka magaalada caasimadda gudaheeda iyo gobolada waxbay ka dhistaa. waa shirkad dad badan oo shaqaale ka shaqeeyaan deegaanadana aad wax uga wada dhistaa. waxa weeyaan shirkad dadku siman yahay dhamaanteedba dadka Soomaaliland inay si ballaaran uga wada shaqeeyaan. marka waxaanu had iyo jeer taageeraynaa oo aad iyo aad ugu dadaalnaa inaanu noqono shirkadaha aad iyo aad u muhiimka ah ee dalka wax ku soo kordhiya. waxyaabaha ku soo kordhina waxa kamid ah waxa allaaliyo wixii horta cashuur badan waan bixinaa oo dawladdu waan soo xareynaa. talabaad waxaan kaloon qabanaa inaan wixii tumurxaad haday wada tahay haday masaajid tahay haday malcaamo tahay intaba aan ka qayb galno. sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland Cabdirasaaq Jaamac oo isaguna sheegay in ay faa'iido badan u qabeen in loo dhiso dhismo cusub ee Soomaaliland. wasaaraddan waxay ku jirtay muddadaas guri kira ah manaanu lahayn meel gaar ay wasaaraddan u leedahay. marka annaka maanta dhagax dhigan wuxuu noo yahay farxad weyn oo aanu kaga baxsanayno kiradii muddada dheerna daashatay. waxa farxad noo ah dhagax dhigan maanta aynu dhismahan dhagax dhigayno in ay isugu yimaadeen shirkadda dhisaysa oo ah shirkad aynu leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay. waxa kaloo farxad noo ah inay designka samaysay shirkad iyaduna aan ajnabi ahayn oo ah shirkad iyaduna aynu leenahay. dhanka kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga muxaafadka ah ee Kulmiye Muuse Biixi Cabdi ahna musharaxa madaxweynaha xisbiga Kulmiye ayaa isaguna waxa uu xukuumadda Soomaaliland ku hambeliyay sida wanaagsan ay markasta ula tacaalayso baahiyaha kala duwan ee wasaaradaha dalku ay u baahan yihiin. waxaana uu yiri guri dhaxalgala oo quality fiican leh ama tayo fiican وبريها واحد اسمعي حرمة بدن أو وزارتها أو قروح بدن هذا إنه دار قروح بدن اسمعي وحنو بدن هاي الدولة دنا قروح بداته وحنو كربنا قرية على سايو إلى يكون هذا حفيسيو ذلك هو أذيك تيفع أو تياس محيطها ما أمر ذلك هذه على الدولة دو تيفع عنين شركة دنا قروح بدن مايا ذلك قروح بدن مايا وايه قامت ذلك الدولة يسوون تكتها وزارة وحلا يربها dalku biyo way ku yar yihiin hargeysina maanta biyo ma haysato. mar haddii daartii quruxbadeeda leedin dhisay annaguna waxaanu ka rabnaa in dadku quruxba. munaasabadaasi ayaa waxaa soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay runtii waxay farxad bay noo tahay maanta inaan halkan ka dhagax dhigno dhismo aad u qurux badan oo sawirkiisa ku arkayo wasaaradii khayraadka biyaha ay leedahay iyadoo ay maal gelinayso ama ay ka baxayso miisaaniyadda dawladda. taasi waxay u muujinaysaa ummadda reer Soomaaliland isbeddelka ku dhacay dalka iyo dhaqaalaha kor u kacay iyo sida dawladdu ugu heelan tahay inay wax ka beddesho ama horumariso dhismayaashii iyo xafiisyada dawladda iyadoo dhammaanba aan ku heelanahay ama aan ku guda jirno tayeynta shaqaalaha iyo tayeynta dhismayaasha meelaha lagu shaqeynayo. sababtoo waa in loo abuuraa shaqaalaha meelaha boon oo ay ku shaqeeyaan haddii ku jiraan dhul yaro eedega oo ciriiriya qof wax badan ma qaban karo. gabagabadii waxaa halkaasi si wada jir ah madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda khayraadka biyuhu ay si rasmi ah u dhagax dhigeen dhismaha cusub ee loo hirgelin doono wasaaradda khayraadka biyaha Soomaaliland.